السلام عليكم أصحابتي إذا كسو دوادا إسماعيل عبد الله channel iyo wararkii ugu dambeeyay ciidamada Itoobiya ee ku sugan Baydhabo ayaa u sheegay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen in aysan u dagaalami doonin haddii ay ciidamada dawladda federaalka soo galaan magaalada sida ay ila xooga ogaal ah u sheegayaan go'aanka Itoobiya ayaa imaanaya xilli ciidamada dawladda ay ku sii sugayaan xarunta ku meel gaarka ah ee maamulkaas kadib dagaal cusub oo ka dhacay duleedka magaalada haddii xaaladuna ay aad u kacsan tahay ilo wareedyo ayaa sheegaya in saraakiisha Itoobiya ay si cad u wargeliyeen Laftagareen in aysan awood u lahayn inay difaacaan ciidamada federaalka oo ku soo wajahan Baydhabo maadaama iska hor imaad toos ah oo dhexmara labada dhinac u sababi kara cawaaqib diblomaasiyadeed oo culus sida ay xogtu tilmaamayso Addis Ababa waxay hadda xooga saaraysaa sidii Laftagareen loogu heli lahaa wada oo uga baxo xaaladda cakiran xilli Muqdisho ay ciidamada gaarayso ku dhawaad 2,000 oo askari isugu geysay furin balaaran ee ku xeeran Baydhabo halka mowqifkiisu siyaasadeed iyo midkiisa military ay sii wiiqmayaan ciidamada Itoobiya ayaa weli joogitaan muuqda ku leh gudaha iyo hareeraha Baydhabo iyagoo ku howlgala qaab ka tirsan iyo mid ka baxsan howlgalka midowga Afrika joogitaankooda ayaa weli xasaasi ah maadaama xiriirka Muqdisho iyo Addis Ababa uu dhaawac weyn gaaray kadib heshiiskii is-afgaradka ee Itoobiya la gashay Somaliland sanadkii 24 kaas oo sababay qalalaas diblomaasiyadeed oo xoogan si kastaba isku dhac kasta oo ciidanka Itoobiya ay la galaan kuwa federaalka Soomaaliya ayaa keeni kara in laga saaro ciidamada awsam ee guud ahaan dalka xaaladda Laftagareen ayaa ka duwan tii 2018 markii oo ciidankii Itoobiya ay u qabteen Baydhabo kadib markii ay xireen Mukhtaar Rowow sababtoo ah waxay xilligaas la safnaayeen dawladda federaalka kamana aysan cabsi qabin isku dhac diblomaasiyadeed wararka ugu waaweyn ee maanta laga helayo Baydhabo ayaa sheegaya in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ay si weyn u kordhiyeen howlgallada ay ka wadaan gudaha magaalada iyo duleedkeeda ciidamada ayaa fariisimo cusub ku sameystay xaafado muhiim ah halkaas oo horay ugu jireen xiisado gaadiid ciidanka iyo hub culus ayaa lagu arkay wadooyinka muhiimka ah xalay dadka deegaanka ah ayaa sheegay in la maqlaayay rasaas goosgoos ah oo ka dhacaysay meelo kala duwan oo Baydhabo ah inkasta oo aysan jirin war rasmi ah oo khasaare sheegaya haddana shacabka ayaa dareemaya cabsi sii kordhaysa dhinaca siyaasadda waxaa jira khilaafaad hoose ee la xiriira maamulka Koonfur Galbeed iyadoo ay socdaan kulamo la isku dayayo in lagu dijiyo xaaladda waxaa sidoo kale la hadalhayaa cafisiyo baaqi loo diray dhinacyada isku haya magaalada wararka aan ka helnay ayaa muujinaya in xaaladda Baydhabo ay weli tahay mid kacsan xogta ay tilmaamayso in ciidamada ay kordhiyeen joogitaankooda gudaha magaalada iyadoo jirta cabsi laga qabo isku dhacyo mar kale dhaca sidoo kale waxaa la sheegay in shacabku u baahan yihiin deganaan iyo in laga fogaado wax kasta oo hurin kara xiisad cusub xaaladda amni ayaa si weyn u saameysay ganacsiga Baydhabo suuqyada qaar ay xirmeen dhaqdhaqaaqa iibka ayaa hoos u dhacay ganacsataduna waxay muujinaysaa cabasho xoogan qoysas badan ayaa bilaabay inay ka guuraan xaafada ay degan yihiin iyagoo u guuraya meelaha ay u arkaan inay ku helayaan ammaan haweenka iyo caruurta ayaa kuwa ugu nugul xaaladan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa kordhisay dadaalo lagu xasilinayo Baydhabo iyadoo ay socdaan qorshayaal lagu xaqiijinayo amniga haddii la eego xaaladda Baydhabo waxay wajahaysaa isku dhaf arrimo ah amni iyo siyaasadeed khilaaf siyaasadeed ayaa saameyn ku leh amniga taas oo keentay cabsi guud oo ka jirta magaalada inkastoo xaaladdu ay adag tahay haddana waxaa jira rajo laga qabo in Baydhabo ay dib ugu soo laabato deganaansho